السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada walaalahay dhammaantiin subax wanaagsan. maasha allah barta aad nagala socotaan waa Sahras channel. soo dhawaada walaalaha qaaliga ah. haddii aad nagu cusub tahay subscribe, haddii aad hore noola joogtayna like iyo comment iyo share la wadaag asxaabtaada. soo dhawaada asxaabi, maanta maxaan noo wadaa quraac caafimaad leh, innaba aan caadi ahayn, wax yar oo jikada dhex yaala aad ka samaysan karto. soo dhawaada haddii aad rabto inaad baruurta iska ridda, caloosha weyn, laalaabyaha, xeerta tirada badan, miisaanka tirada badan, intaan isku soo ogow. waa quraac yar oo fudud, ma fahanteen? markii aan soo diyaarsaday sidaa ayay ii noqotay. nus kafey aan kusoo daray liin iyo boorash iyo furto yar, intaas weeye quraacda. marka soo dhawaada walaalaha qaaliga ah, innaba caadi ma ahan. channelka subscribe noo saara, like iyo comment la wadaag asxaabtaada. waad dareemaysaa hal bil oo haddii aad si toos ah aad quraacda u cunto waad ka helaysaa. marka waad dareemaysaa inay xeer badan kaa dhacday. marka asxaabay, alaabtan ayaa meesha ku haystaa. waxaa weeye boorashta madow weeye, nus kafey, sabiib, xabad moose, xabad kiwi, jeex liina iyo 3 xabo strawberry ah. marka u horeysa waxaan sameysanaynaa kafeyda 2 malgacad oo malgacada yarta oo shaaha labadeeda, iyo jeexa liinta ah, iyo galaas biyo kulul ayaan kusoo darayaa. liinta adiga xabad waad ka dhigan kartaa, laakiin aniga jeexaas ayaa igu filan. waa quraac aad u fudud asxaabay, soo dhawaada. haddii aad rabto inaad si dhaqso isku cataysa, liinta 1 xabo ayaad ka dhiganaysaa, amaad laba jeex iyo waxyaabahaas aad lahayn. markaanay xabadaas haafkaas ayaan isticmaalayaa. waxaan ku darayaa biyo kulul aan soo kariyey. marka koobka kafeyda markaan caba nus saac kadib ayaan haddana boorashta ku quraacanaya hadduu ilaahay yiraahdo. marka soo dhawaada, waa quraac fudud, sidaan u karinayo ayaan tusayaa. waa wax aad u fudud, ma fahanteen? digsi ayaan dabka soo saaranayaa. digsiga ayaan soo saartay asxaabtayda. anig unbaa karsanaya, ciyaalkayga ma jecla mashaariya iyo howlahaas, ma fahanteen? hal bakeeriyo caano ayaan kusoo shubay. caanaha aan ku karinayo waa caanaha aan faadka lahayn, bilaa subaga ah, subaga laga saaray weeye. waa hal bakeeri oo caano ah. boorashta ayaan marka hadda ku darayaa 4 malgacdood oo boorashta iyo bakeeriga caanaha ayaa digsiga ku jira. dabkana wuu ii shidan yahay. marka karinteedaba waa in yar, soo maha in yar. far iyo suul milix ayaan kusoo darsanaya. haddii aad rabin waa iska dhaafi kartaa, wax weyn ma ahan. in yar ayaan ku daray far iyo suul ah. marka waan karinayaa. ila socda asxaabay videoga ilaa dhamaadka daawo. subscribe-na noo saar, waad ka heli doontaa jawaabna maxay video wixii oo ra'yigiina comment igula wadaaga insha Allah. kana waan kariyay asxaabtayda, diyaar waayo. karin badan ayada ma rabto, boorashta dhaqso iska karaysaa, soo maha waqti kaama qaadanayso waqti badan. marka waan diyaariyay. sokor iyo waxba kuma daraayo, saliid kuma daraayo, maadaama aad iscaataynayso. saliid iyo sokor iyo waxyaabahaas dhan inaad iska ilaaliso weeye, oo aadan isku badinin. marka waa ii bislaatay. saxan ayaan kusoo gidisanayaa. hal qof quraacdiisa waaye, soo ma aragtaan? waa wax aad u yar, 4 malgacdood aad bay u yar tahay. marka furootada ayaan haddana soo jaranayaa. kiwi iyo moos, strawberry iyo sabiib, intaas weeye waxa aan haysto oo aan dusha ugu darsanayo hadduu ilaahay yiraahdo. waa soo fiiqanayaa, waan soo jarjaranayaa. halkana asxaabi waa soo diyaariyey, waa soo jartay mooska iyo strawberry iyo wixii oo dhan. waxaan soo qaadanayaa marka hadda boorashti noo karsanayd
kafayda waan soo cabay nus saac kadib ayaa la rabaa inaad quraacda cunto. marka waa ka asxaabay sidaas ayay noogu soo dhamaatay maasha allah. waa inoo fiidiyowga dambe hadduu ilaahay yiraahdo khayr badan ayaan rajeynayaa.